Macalinkiisa ayaa aabihii ku yidhi ma heli doono wax darajo ah imtixaankan. Waynu ognahay sida kuwa lagu tilmaamay guuldarooyinku ay u dhibaatoodaan aad iyo aad, gaar ahaan bulshada ku hareeraysan. Waxayna inta badan la kulmaan mustaqbal murugo leh, laakiin maahan inaynu ku jeesjeesno oo niyadda jabino. Waxaa laga yaabaa xilliyadu inay isbedelaan. Kelmadda carabi ayaa odhanaysa farubbama taduuru dawaa'ir, badana xilliyadu inay isbedelaan. Haddaba qisadeena maanta waa mid aad uga duwan kuwii hore, saameyn aad u weyna leh, taa oo na tusi doonta in mustawaha qofka iyo waxbarashadiisu ay tahay laba arrin oo kala duwan, aysanna ka dhigneen fashilka noloshiisa. Waxaynu ka hadli doonaa Scott Davis, aasaasaha iyo hindisaha shirkadda labaad ee ugu soo saarka badan malabka, waa malabka ee Holito. Magacaygu waa Sataar Cabdiraxmaan, halka ay naga daawanaysaana waa kanaalka Nasii Media. Soo dhawaada daawadayaal. Scott waxa uu ku dhashay tuulo yar, waxa uuna ku soo barbaaray beer ay lahaayeen waalidkii, laakiin waa uu ka duwanaa qoyskiisa oo waxa uu ahaa mid waxbarashada aad uga liita, isagoo aad uga murugoon jiray saaxiibadiisa siday ugu jeesjeesayaan, laakiin waxa uu ahaa mid joogteeya waxbarashada ilaa laga gaaray xaaladii noloshiisa bedeshay. Sanadkii 2011 Scott waxa uu ku dhacay imtixaanka u dambeeya ee fasalka, laakiin kelmad uu ka maqlay macalinkii ayaa ku noqotay mid falaar ah uusan weligii ilooweyn. Adigu weligaa noloshaada waxba ma gaari doontid, sidoo kale maba budnidba xitaa inaad sanadkan dhammaysato fasalka. Hadalladii uu ku yiri macalinkii taa uu ku noqotay falaar uusan iloobin weligii, ilaa ay gaarsiisay in uu waxbarashadii ka istaago, diidayna in uu dhammaysto. Kadib waxa uu bilaabay inuu jidadka ku iibiyo dhuxul, haddana waa uu ka tagay oo waxa uu bilaabay inuu ka shaqeeyo dhismo si uu uga helo lacag. Laakiin maalmo kadib waxaa ku dhacay xanuun weyn, isagoo aadi waayay shaqadii xanuun dartii, ilaa markii dambe uu ka kacay xanuunkii xanaaneyn uu ka helay waalidkii, khaasatan hooyadii, isagoo aad u dareemay ciriiri dhanka nolosha ah. Waxa uu gaaray 22, mana jiro wax camal ah uu haayo, laakiin ma ogeen in xaalad yar ay bedeli doonto noloshiisa oo idil. Waxaana aad u dhiirigelin jiray hooyadii, iyadoo kula talisay markii dambe in uu barto koorsooyin fadhi ah oo xisaabta iyo suuqgeynta, laakiin waxa uu meel ku xariiqday in uu qaban doono shaqo alaala shaqadii u soo baxda. Laakiin hooyadii ayaa xanaaneyn jirtay ubuq yar oo shinni ah, waxaana ku soo dhacday fikrad ah in uu hooyadii caawiyo inta uu shaqo ka helayo. Laakiin intuusan ku dhaqaaqin arrinka ayaa fikrad kale ku soo dhacday oo ah in uu bangiga aado, lacag amaahna weydiisto. Laakiin sida aan ognahay, bangigu waxa u baahan yahay damiin iyo dad damiin ka noqda. Inta kadib way u suurtageli weysay inuu helo lacagta, waa uu joogteeyay ilaa markii dambe uu ka quustay. Waxa uu soo baxday shaqadii shinnida inuu ka shaqeeyo, waxa uu soo qaatay dhalooyin, waxa uu ku shubay malabkii shinnida ka soo baxay, waxa uuna bilaabay inuu ka iibiyo deriskii iyo dadkii u dhowaa. Maba uusan ogeyn in ay noqon doonto shaqo bedesha noloshiisa oo idil. Waxa uu suurto gashay inuu halkaa ka helo lacagtii qutul daruuriga ama lacag yar, isaga oo sanadkiina samayn jiray lacag dhan $2,000. laakiin 3 sano markii uu sidaa ahaa waxa ku dhacday burbur, maadaama uusan samaynin wax horumar ah ilaa laga gaaro bilowgii sanadkii 4. Isbedel ayaa ku dhacay noloshiisa, isagoo maalin maalmaha ka mid ah go'aansaday inuu aado carwo ganacsiga lagu soo bandhigay. Laakiin dhibka jira ayaa ma uusan haysanin lacagta carwada, marka laga reebo kharashka hal maalin. Sida caadiga ahba waxa uu qabsaday halkii maalin, waxa uu bixiyay $400. weligiisna kuma fakirin in ay noloshiisa bedeli doonto, isaga oo soo jiitay dareenka mas'uul ka mid ah dukaamada tafaariiqda ee Holland. Halkii ayay isku barteen ninkii iyo Scottba. 9 bilood kadib markii laga joogay carwadii iyo ninkii ay isbarteenba, waxaa ku soo warceliyay oo soo wacay ninkii, waxauna ka codsaday in uu diyaariyo 25,000 oo dhalo oo ay ku jiraan malab. Laakiin waxaa la yaab in mas'uulkan uu soo booqday carwada maalinka Isniinta, waana maalinka oo Scott qabsaday inuu carwada ku soo bandhigo waxa uu hayo. Sida ay tahayna howshu waxa ay ku socotay si horumar leh, waxa uu mar ka dambeeyay Scott sameeyay horumar ilaa laga gaaray sanadkii 2015. Scott waxa uu sameeyay 600,000 oo pound. waxa uu yiri waxa ay ahayd 4 sano oo xanuun badan, murugo leh iyo lacag la'aan. Qof miyir qabana waa uu ka quusan lahaa, maxaa yeelay waxay ahayd wax aad u adag oo aan macquul ahayn. yaaba qiyaasi lahaa inay saan isku bedeli doonto hawshan. Intaas kadib waxaa soo wacay mas'uulkii oo ka codsaday inuu soo sameeyo ama uu soo saaro tiro ku filan ilaa iyo 5 dukaan. degdeg ayuu uga aqbalay,
isla markiina waxa uu ku laabtay ehelkiisa isagoo u sheegay in ay sugayaan safar dheer oo ah inay ku laabtaan camalka ayna sameeyaan malab. Intaas kadib Scott waxa uu la soo baxay horumar iyo iftiin ilaa ay maanta shirkadiisu noqotay booska lixaad ee shirkadaha ugu wax soo saarka badan adduunka, iyadoo sidoo kale shirkadda Hollytop ay noqotay booska labaad ama shirkadda labaad ee ugu soo saarka badan malabka, iyadoo haatamna u dhoofisa malabka caalamka kale. runtii waa qiso cajiib ah. qisadu waxaan ka baran karnaa laf adeega iyo sheyga ku celcelintiiba qofka inay u tahay horumar. Shay lagu celceliyana runtii laguma khasaaro. Kelmad carabi ayaa oranaysa maa takarrara taqarrara. Noloshu ma ahan mid burburaysa, mid u istaagaysa hal mar inaad khasaarto ee way sii soconaysaa. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeeni maanta. Haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar, waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.